caruurta xaggaa joogtay baa ayaa waxay soo dirsanaysaa baaq waxay leeyihiin caruurtiina dhooftaay dhanka Yurub kuwiina dhaqso loola rooree dhibka lagala yaacow waxaan nahay dhalaankii dhulka hooyo joogay dhanba noo maqlaysaa taar bay soo dirayaan kuwii kale waxay odhanayaan dhalaankii dalkaygow inkastoo dhir iyo webi iyo buuro dhaadheerina kala dhex yaalaan inkastoonu dheernoo ka fognahay dhulkiinaba warkan aad dhigdhigaysaan dhayaluma arkayne waa dhegaysanaynaa dabcan may odhan laakiinse waxaynu ka mitaalaynaa xaaladooda waynu mala awaalaynaa caruurtiina dhooftaay dhab ahaan nasiibbaa dadka dheer tihiinoo darxumada dhacaysee dhankayaga ku badataa ka gasheen dhul nabadoo dhawaqii rasaastiiyo dhama iyo haraadkiiyo dhididkii kulaylkiiyo dhaxantaad ogeydeen ilaah ba idin dhaafsho nabad idin dhexgeeye dhibyaraan ma nooshiin ayay yidhaahdeen kuwii xaggaa jooga dhallaankii dalkaygow kuwa noo dhawaaqee dheef nagu tuhmaayow waxba idinma dhaanoo dhib kalaana haystee dhan haddaa ka eegtaan nabad waa dhex joognaa jidhka dhaawiciis iyo dhawaqii rasaastana halkan waa la dhaafo isdhegaysi baa jira balse dhimirka maankiiyo nafta dhiilla kuma yara dhismaha iyo muuqiyo dhogortaa badbaadaye waxa dhaawac weyn qaba maskax dhayid u baahnayd dhaqan la yska maydhiyo dhirif iyo nacayb iyo dhinac laysu soociyo dhagxumaantu waa muush annagoon ka gelin dhagar dadka aan dhex joognaa dhib bay naga tirsanayaan wax loo dhimayna maaqaan caruurtii kale way soo hadlaysaa inkastoo war la yaab loo sheegay kuwa islahaayeen yar shaxaada waxay soo jawaabeen caruurtiina dhooftaay dhab ahaan xaqiiqdii idinkaana dhaamo dhowr jeer ayaantii dhuuni u fadhiisto dhereg seexanayee moogtiin dhallaankii dhulka hooyo joogay inay dhowr habeen qaar iyagoon dhadhama cunin seexdaan dhanqalanka caruurtiina dhooftaay idinkaa dhanaan iyo biyo noocyo laga dhigay dharqadoo qurquriyee dhuumaha qasabada idinka isku dhaqayo dhar ku maydhanayo ku dhacaya tuushko dhex dabaalanayee moogtiin dhallaankii dhulka hooyo joogay inay dhuunta qaarkood wuxu dhaafo waayeen caruurtiina dhooftaay maryaa waydun dhaqataan maaha waa maydhataan waa sida xoolaha u dhaqataan wey caruurtiina dhooftaay maryaa waydun dhaqataan kabaa noocyo dhowraa hadba qaar ku dhacaysaan annagana dhagxaantiyo dhalandhoolka milicda cagihiina dhalan rogay caruurtiina dhooftaay dhigashada iskuulkiiyo dhigashada waxbarashada haddii aad dhammaantiin dhibyaraan u helaysaan dhankayaga ma taaltaal dhisme iyo kuraas iyo dhige iyo tabaashiir dhayal laguma heli karo iyagoo si kala dhima haddii ay dhaboobaan waxaa jira dhigaaloo ilmihii wax dhigan laa cid ka dhiibaysaan jirin wayse dhici kartaa ruux aabbihii u dhididee kuman laga dhintaa jira kuman laga dhaqaaqoo dhulku koriyey baa jira kumayaal dhallaan oo aanu waalidkii dhalay waxba dhaamin baa jira jirto ay mala awaal tahay haddana waa xaqiiqi wey markaan akhriyaya aniga qudhaydu ama aan dib isugu eegayo runtii way damaqdaa sidaan ilmahaasoo kale ahay waayo waa xaqiiq maalin kasta iyo habeen kasta iyo waqti kastaba markaa maaragtay ay toos noo saameynayso culayska carruurtaas ka sheekeynaysa dhulkii noo dhallaan waxay kuwiiba markaa u jawaabaya xagga ayaa mar labaad kusoo noqonaya oo markaa mar labaad dacwaddii kumay qancin arrintu inay markaa maaragtay inkastoo dhibaatada soo sheegteen way u jawaabayaan kuwii xaggana dhallaankii dalkaygow kuwii dhowrsanaayee dhulkii noogu hadhayo waxba idinma dhaanoo dhalaalka quruxdii iyo dhadhan saacad joogaa qofna dhaabi maayee ma ogtiin dhallaankii debadaha u dhoofee laga wada dhur sugayey inay dhicidu badan yihiin diintoodii kala dhiman ka dhantaalan hadalkii dhaqan iyo hiddii lume dhulka ay ku nool yihiin dhexgalkoodu waa milan inta dhowrsan mooye in sigaarka dhuuqdiyo in xashiish dhadhamisiiyo in maryiba dhigatiyo qeyb dhacanti baa jira qeyb dhacanti weeyaan markay halkaas marayso halkan kuwii joogay
ay saa u hadlayaan kuwii halkaa joogayna ay sidaas yihiin waxay noqonaysaa uun in afkala qaad ay noqoto. sababto tahay ilmaha halkaa jooga warkii waad maqasheen qisada waraabaha. waxaa la yidhi dhurwaagu marka uu yimaado habeenkii waxa la yidhi wuxuu dhegeystaa reeraha. waa sheeka soomaali waa halkula baxa. markuu reeraha dhegeysto wuxuu dhegeystaa bal in la yidhahdo xoolihii waxbaa maqan waxbaa dib jiray, sidii neefka dib jiray uu meesha uu u dib jiray ugu raadsado. marka waxaa la yidhi maalinba dadkiina way fahmeen in waraabuhu wax dhegeysto. markay wax isu sheegayaan, iyagoo isu sheegaya meeshii xoolaha ugu dambeysay xoolaha lumay ayay meel kale tilmaamaan. waxay isleeyihin waraabiyi baa idin maqliyo idinka horeyn doona. markaa wuxuu yidhahdaa baa la yidhi waxa la maalin buu dhegeystay reer awrti maye awrtii miyaan la soo hoyn lama soo xaggee cid ugu dambeysay. markaa waxay tidhi inanba markaa la weydiinay me awrti maanta waxay joogtay reybadii halkaasay joogtay. markaa meel kale laakiin dadka tooska markii qofka arkaya u tilmaamaysa. waraabihii markaa orod waa ka ku dhuftay ee sii reebadii ka gaadh siduu ordo meeshii si kastaba uu hareeruhu uga yimi reebadiiho uu ka waayay wax awra. markaa waa ka odhanaya waar maanaan rooreynoo ruugga leehaya mise reebadaan reebadii ahayn mise ramigu kasoo dhacdii baan run sheegay. waxaan ka wadnaa caruurta joogto wadankii way yaabayaan markay arkaan sida ay kuwan u hadlayaan meesha ay ka sugayeen wax in iyaga qudhooda dhibaato iyo dayrin laga soo keenay. kuwan oo kale waxay ka mid yihiin inkastoo gabaygu u dheeryahay aan idin dhammaynahay imaginationka ama maaragtay meel awaalka aan ku sawirnay ama aan ku sawiray xaaladda carruurta aylan kala kulanto. waxaa taa la mida isla carruurta caynkaas usi sifeynaysa ee ka hadlaysa dhibta caynkaasa inay qabaan ayaa waxaan wada hadashiiyey iyagii aabbahood. wiil yar oo surwaalku ka dhacayo iyo aabbihii oo kusoo tabcay oo lasoo rafaaday ayaan damcay bal inaan u garqaado ama aan wada hadashiiyo. waxaa la yidhaha duq iyo wiil baa dacweeyey. inkastay maaso dheer tahay halkaan ka bilaabaya waxay leedahay oo duruufta bulshadeennan macnaynaysa qurbaha joogta. intaasi ninkaanay deeqin daliil waxa ugu filan war daalacanoo la daday ku daabacan waaqicina duxiyo waanana u badan oo ay dulucdiisu leeday. duqiyo wiil baa dacwiyey ka dooday amuuro badan. duqani waa awdardaan dagaaladu waayaday dalkeenna ragaadiyeen ayuu damiciisu faray da-dii keliya isaga deeqdiisa ilaah ku siiyey. da-diisu intay yar tahay inuu la doonto deegaan nabdoon duulaan iyo buuq lahayn darleef iyo gaajo ool. dadaalkaas aan yarayn kumuu xilin daa-inkii galbeed durduruu ku yimi deegaan nabaduu ka helay darleef iyo gaajo reeb. ha yeeshee docdii kalaa daleeli ka soo baxdo yarkuu la dadaalayaa abuuray dareemo kale. danseegnimo kow ka tahay rafiiq xumo door u tahay. waxaa odaygii dardaan dadow biyodiid ku riday. yarkii mabadow saxsana afkiisu ma daahirsana ishiisu ma daadegsana. dharkiisa hiddii dadkeenna dariiqal islaamigii malaha diibkii saxnaa. dugsiga waa loo diraa qur-aanna duxaa mar qura kor uguma sii dalaco. taas waa iska wada garanaysa maan filaya ilmihii halkeed maraysa adeer maantana waa duxaa. waa laga yaaba ingiriisku ay naga duwan yihiin laakiin wadamadaas kale ee yurubtaa kale dadku ku yaryihiin ilmihiibaa sabtidii axadda la geynayaa weli adeer xaggeed maraysa waa duxaa. waaba ka dadaalay kuwa kale alifka ma soo dhaafa. marka dugsiga waa loo diraa qur-aanna duxaa mar qura kor ugama sii dallaco. duqii digidiya wax sheeg dardaaran wuxuu ku yidhi aabbow duca iga shaqayso. aabbow dhaqankii ha doorin. aabbow diintii ha seegin. aabbow tacabkay ha duugin. aabbow hadalkaaga dooran ka fiirsa intaanu duulin. maryaha dushaad ku qaadan habkaa dadka ula dhaqmayso ka eega daliiladeenna ha raacin dariiqii leexsan. wuxuu wiilkii ku dooday dardaanow aabbahay yarkan cid u hadasho qudhiisu la-ayay moogta isagunbaa la eedeeyaa dhakada laga saara. marka waa in mararka qaarkood laga hadliyo waa lisaanul xaalkii. dardaanow aabbahay dariiqa haddaan ka leexdo aniga dembigayga maha. dariiqa adigu rabto haddaan ka leexdo anigu dee maqalad maan samayn. sababta ma garanaysaa
dariiqa haddaan ka leexda aniga dembigayga maaha. markaad degel gaal ay keentay nin diiday abuurta eebe markaad darsigala yeeshay adaan samahayga doonin inaan jidka diinta seego adaadan usii qorsheeyey. bal eeg dalkanaadi keentay, bal eeg dariskeenna aabe, bal eeg waxa dabin la qoolay, bal eeg waxa laac la daadshay, bal eeg da-yartoodan qooqan, bal eeg dumarkoodan qaawan. dardaan maanaa cagtayda ku doontay ayaad i leedahay. wuxuu duqi ugu jawaabay, odaygu wuu yaabay marka, adaa meeshani keenay meeshanaana duruuftan wadata. odaygu wuu yaabay marka, weli cidsanoo la ganaqsta muu arag. wuxuu duqi ugu jawaabay, anigu xuma kulama doonin, anigu inaad diinta seegta marnaba kama doonin laabta. aniga duqda hooyadaaya waxaa darajiya xil noo ah, waxaa indha doogsi noo ah, waxaa dahab nooga fiican adoo xaq ku daakiraya. aabbow dembi hay samayne, haddaan degel gaalku keenay adaan ka fekeray dantaada, adaan dulli kaa badbaadshay, adaan webiyada dushooda dartaa uga soo tallaabay. dalkeennii markuu burburay umula dooxbaa ka dhacay, wax daran baa nagu habsaday, nin dunyale uuma hadhin wuxuu ku dabero naftiisa. waxaase intaa ka daran da-daada ilmii ahaa barh baa dirirtii ku go-ay, ku le-day dagaaladii, kuwii dabayaaqi hadhay darxumo gaajaa u dheer iskuul marna laguma darin. wuxuu wiilkii ku dooday muuqancin weli, dabcan adaan kula soo dadaalay buu leeyahay soo maaha. wuxuu wiilkii ku dooday, adiyo duqda hooyaday dadaal marna maydun muujin, dabaal anigoon aqoonin ayaad badda doobinaysaa, intaad i dhigteen dusheeda dhahdeen biyahaas ha daarin, hadduuse i qaato daadku aniga dembigayga maaha. wuxuu duqi ugu jawaabay, aabbow dembi aanan geysan aniga dusha hayga saarin, sidaanan dadaal u muujin anoo kugu daray iskuulka miyaanan ku geyn dugsiga, miyaanan nin diin yaqaan duruus u dhigay ku odhan. wuxuu wiilkii ku dooday, inaad dugsiyada igeysay anigu dood maan ka keenin, ha yeeshee waxaa dareen leh adoon diintaba aqoonin intaad ani ii dirayso waxaanad u dooranaynin. miyay dad ka suuro tahay inay dahab yaal duleedka cid kale doontay dhahaan? miyay dad ka suuro tahay adoo oon dibin jajabay inaad biyo dabaqabsiya durduuro cid kala tidhaa? danna igu jira dardaan dugsigan aada qaba i tidhi inuu kaa daacad yahay. sabtidii waxaad iga nasanaysaabaan malina. duqi dawaq baa ku dhacay, dayaan madaxuu qabsaday, dibnaha ciil buu la cunay, jirtoo dihnigiisu qiray in doodan yarkii ka helay wuxuu yaro diidan yahay siduu u ilbuufsanaa. dib buu ula shiray naftiisa, wuxuu yidhi daalayey daaday ku khasaarayey, haddaan canugii dushayda ka beermay duxdii jidhkayga hadeerta difaaci waayey, maxaan berri yowmudiinka markuu dadku qaawan yahay nafteyda ku daafacaa. allaa daa-ina hortiisa. waa mala-awaalkii siciid saax baa kolley arrintaa ka sheegi doone. macnaha inagu mala-awaal ka sheekeynayno ka hadlinaynay ilmahan yar iyo duruuftiisa. odayga xataa wuxuu sii mala-awaalay imagination kusii sameeyey. hadda marka u aakhira tagan hadduu yarkan garti kaga helay adduunka oo talo aakhirana siduu gar u heli doonaa inuu is difaaci doonaa.